banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo filimkii dhawaan la sameeyay lagu aflagaadeynayay nabigeena suuban iyo dhibaatooyinka lagu hayo wadamada muslimiinta sida Falastiin, Afghanistan, Suuriya iyo wadamo kale oo badan ayaa saakay waxaa lagu qabtay magaalada Cape Town. Banaanbaxan oo ka qayb qaadanayeen kumanaan muslimiin oo ka kala socday wadamada caalamka isla markaana ku nool wadanka South Africa ayaa waxa banaanbaxayaasha ay ku marayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Cape Town isla markaana watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo sidii ay uga soo horjeedaan in meel looga dhaco sharafta nabigeena suuban. Booliiska magaalada Cape Town ayaa banaanbaxayaasha hareer socday si ay u xaqiijiyaan ammaanka isla markaana rabshado aysan uga dhalan banaanbax intuu socdo iyadoo ciidamada taraafikada ay xireen wadooyinka waaweyn ee soo gala halka uu banaanbaxu ka dhacayay. goobta uu ka socday banaanbax ayaa waxaa kula kulanay tiro yar oo Soomaaliya isla markaana ka qayb qaadanayay banaanbaxa ayagoo warbaahinta qaranka uga waramay shucuurtooda ku aadan banaanbaxaasi. أو كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا عرض حاضر يأكل فيها البر والفاجر والآخرة وعد الصادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبدل الباطل كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. ساكو حماشا اسكوي مانا إن شعورتين أموجنا ولا لهن إسلام كأميال كستكون دفتون وحربا إنا أشياء ومد صومالي ميال كستجوغا إنا إيكن شعورتين أموجيان. banaanbax wuxuu ku saabsanaa oo lagu taageeray ama laga soo horjeeday dhibaatooyinkii lagu haayay ee muslimiinta Syria iyo Falastiin oo sida ognahay ku jira gumeysi zaa'id ah ku jira. Marka sidoo kale waxa laga soo horjeeday filimkii xumaa ee laga sameeyay muslimiinta lagu aflagaadeynayay saddex suulaxaad ayaa laga soo horjeeday. maanta aad ayaa la isku soo baxay aad boqolaal qofood ayaa ka soo baxay Cape Town isku imaaday. si kastaba haddee banaanbaxani ayaa waxa uu ku soo idaaday jawi aad u wanaagsan ayadoo uu qayb ka yahay tiro banaanbaxyo oo ruuxay wadamada caalamka ama wadamada muslimiinta ka oo looga soo horjeeday filimkii lagu aflagaadeynayay nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam. Cabdillaahi Qorshe, TV-ga qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, wadanka South Africa.